Assalaamu calaykum. 10kii July 2002 magaalo yar oo lagu magacaabo Columbia oo ku taala gobolka South Carolina, Koonfur Carolina, laba qof oo kala duwan ayaa waxay soo waceen booliska magaalada 5tii subaxnimo oo rubi dhiman ama 11 saac oo subaxnimo oo rubi dhiman, waxayna u sheegeen in baabuur uu ku gubanayo jidka dhinaciisa, jid lagu magacaabo Oakway oo ka yara baxsan magaalada Columbia. Booliiska iyo dibdamiska markii ay tageen meesha loogu sheegay in baabuurka uu ku gubanayo, waxay ugu tageen baabuurkii oo gubanaya. Baabuurkii markii ay damiyeen waxay ka dhaxleen meydka haweeney. Markii hore waxay u qaateen in haweeneyda baabuurka uu shil la galay oo uu ku gubtay, laakiin markii meydkeeda ay baareen waxay arkeen in haweeneyda baabuurka uusan ku guban ee marka hore la dilay kadibna baabuurka lagu gubay. Sababtoo ah haweeneyda jirkeeda waxay ka heleen dhowr xabadood. Haweeneyda waxay ahayd haweeney qaawan oo wax dhar wadan, sidoo kale waxay ahayd haweeney madow ah. Intaa kadib markii ay baareen alaabteedii ma aysan helin aqoonsigeedii, mana aysan aqoonsan qofka ay tahay haweeneyda. Goobtii markii ay baareen waxay ka heleen xabado jabshe, waxayna sida ku ogaadeen in haweeneyda lagu dilay qora jabshe ah. Intaa kadib booliska waxay la xiriireen dambibaarayaasha deegaankana waxaa lagu magacaabaa Richland, wuxuu ka tirsan yahay gobolka South Carolina. Markii dambibaarayaasha ay imaadeen, mid ka mid ah dambibaarayaasha ayaa wuxuu wata qalab lagu baaro in dabka lagu daray waxyaabaha dabka dedejiya iyo in kale sida shidaal oo kale. Markii uu baarayna wuxuu ogaaday in lagu daray dabka waxyaabaha dabka dedejiya, sidaasna wuxuu ku ogaaday in qofkii dila haweeneyda uu dabka shiday si wixii cadaymo ah oo uu ka tegay uu kaga takhaluso. Intaa kadib haweeneyda meydkeeda waa ay qaadeen, waxay geeyeen dhakhtarka si baaritaan loogu sameeyo. Markii dhakhtarka ay geeyeen oo dhakhtarkii uu baaritaan ku sameeyey, waxay ogaadeen dambibaarayaasha in haweeneyda 3 xabadood lagu dilay oo ah xabado jabshe. Sidoo kale dhakhaatiirtu waxay u sheegeen dambibaarayaasha oo ku jira natiijada in haweeneyda la gubay meydkeeda markii la dilay kadib. Siday ku ogaadeen? Waxay ku ogaanayeen waxay baareen sanbabkeeda, waxay arkeen in sanbabkeedu uusan guban. Haddii haweeneyda iyadoo nool dabka lagu shiday, waxay neefsan lahayd dabka inta dabka uu ku shidan yahay oo ay ka dhimanaydo waa ay neefsan lahayd, waxayna neefsan lahayd kulaylkaas ayaa gubi lahaa sanbabka. Laakiin maadaama ay meyd ahayd marka dabka lagu shiday, ma aysan neefsanayn, sidaa darteed sanbabkeeda ma uusan guban, wuxuu ahaa nadiif. Sidaas ayayna ku ogaadeen in haweeneyda la dilo marka hore kadibna dabka lagu shiday. Intaa kadib dambibaarayaashu waxay isku dayeen in ay fara ka qaadaan si ay u aqoonsadaan qofka ay tahay, maadaama aysan aqoon ilaa iyo xilligaas qofka ay tahay. Laakiin faro waa ay ka qaadi waayeen, sababta waa ay gubatay, faraha waa ay ka gubteen. Sidaa darteed calaamadaha lagu baaro faraha waa ay ka gubteen, mana aysan ku aqoonsan karin sidaas. Maalinkii xigay markii la gaaray, maalinkii 11kii July, nin ka tirsan xafiiska sheriifka oo kuwa booliska oo kale ah ayaa wuxuu soo wacay dambibaarayaasha, wuxuuna ku yidhi waxaa laga yaabaa haweeneydan inay tahay in adeertay oo la waayay dhowr maalin ka hor. Intaa kadib dambibaarayaashii waxay tageen haweeneyda uu u sheegay gurigooda, waxay wareysteen hooyadeedna waxay u sheegtay in dhowr maalin ay la'dahay gabadheedii oo aysan arag. Haweeneyda waxaa lagu magacaabaa Dale Evan Hall. Markii dambibaarayaasha ay hooyadeed wareysteen, waxay weydiiyeen in ay jiraan dad ay saaxiib la ahayd ama dad ay ka shakisan yihiin ama dad ay cadaawad ka dhaxeeyeen oo ay ka shakisan yihiin in ay iyagu dileen. Sidoo kale waxay weydiiyeen shaqadii ay qaban jirtay gabadhooda. Waxay u sheegtay hooyadeed in gabadheedu ay ahayd kalkaaliso, sida ay iyagu ku ogaayeen waxay ahayd inay tahay kalkaaliso. Laakiin dambibaarayaasha markii ay baareen haweeneyda iyo backgroundkeeda, waxay ogaadeen in aysan ahayn qofka ay moodaan qoyskeedu in ay tahay. Waxay ahayd haweeney jirkeeda ka ganacsata oo caan ka ah jid lagu magacaabo Two Notch-kuna waa jidka weyn ee uu ka leexdo jidka ay ka heleen meydkeeda ee Oakway-gu waa farac ka leexda jidka weyn ee Two Notch. Jidkaas ayay ka shaqay jirtay, waxayna ka ahayd jidkaas caan. Waxay ahayd haweenka jidka dhinaciisa istaaga ee jirkooda ka ganacsada. Sidoo kale hooyadeed waxay u sheegtay dambibaarayaasha in mar ay ku tiri haddii aan dhinto waxaa i dilay saaxiibkay ee sidaas ogaaw. Saaxiibkeed markii ay weydiiyeen yuu yahana, waxay u sheegtay inuu yahay nin lagu magacaabo Charles Reddick. Markii ay baareen backgroundkiisa iyo qofka uu yahay Charles, waxay ogaadeen in dhowr jeer la soo dacweeyey oo dumar ay soo dacweeyeen oo uu u gacan qaaday. Sidoo kale waxay ogaadeen in hadda ka hor mar lagu eedeeyey oo ay ku caddaatay inuu geysto xadgudub jinsi
booliisiya. Intaa kadib waxay baareen goobta uu degan yahay, waxayna ogaadeen in uu degan yahay meel 10 daqiiqo loo kala socdo meesha laga helay meydkeeda. Intaa kadib waxay tageen gurigiisa. Guriga markii ay tageenna waa ay ka waayeen. Intaa kadib waxay wareysteen deriskiisa. mid ka mid ah deriskiisa ayaa wuxuu u sheegay in habeenkii ka horreeyay maalinkii ay heleen habeenkeedii in habeenkaas uu baabuurkiisa dhaqayay ayna ahayd markii ugu horreeyay ee arkaan isaga oo habeen madow baabuurkiisa dhaqaya. Sida caadada ah inta badan habeenkii ma uusan dhaqi jirin baabuurkiisa. waxay u qaateen dambi baarayaasha markii intaa ogaadeen in uu baabuurkiisa nadiifinayay si wax cadayna aan looga helin haddii baabuurkiisa la baaro. dhowr saacadood kadib ayay u soo laabteen gurigiisa, waxayna u yimideen isaga oo jooga. waxay u sheegeen in Dale la dilay oo ay kiiskeeda baarayaan, waxayna u soo wadeen xarunta booliska. markii xarunta booliska ay keeneen oo ay wareysteen, waa uu inkiray in uu isagu dilay Dale ama inuu wax ka og yahay dilkeeda. intaa kadib waxay mariyeen polygraph ama lie detector, waa qalabka beenta iyo runta. tijaabadana waa uu ku dhacay oo waa uu ku fashilmay, laakiin caddayn ma uusan noqon karin oo polygraphka inta badan caddayn ahaan looma isticmaalo. sidaa darteed waxay ku qasbanaadeen inay iska sii daayaan maadaama isagana uu inkiray wax caddaynana ay ku waayeen. 15 July ayaa waxaa u timid booliska haweeney lagu magacaabo Shonda waxay ahayd haweenka jirkooda ka ganacsada ee istaaga jidka Tunoch dhinaciisa. Shonda waxay u sheegtay in dhowr habeen kadib markii la dilay Dale ay nin raacday. ninka markii ay baabuurkiisa kortay oo cabaar ay sheekaysteen ayuu fanaanadiisa kor u qaaday, wuxuu tusay calooshiisa. caloosha waxaa ugu qoraa serial killer, dilaa si isxigxiga wax u dila. wuxuuna kula qoraa ay tiri dhiig, wuxuu ku qoraa far guduudan. haweenaydii isla markiiba baabuurka ayay ka degtay waana ay ka carartay, laakiin ma uusan sii daba kicin. nasiib wanaaggeedana sidaas ayay ku badbaaday. markii intaa ay u sheegtay dambi baarayaashii oo ay ogaadeen haweenayda inay ninka wejigiisa si fiican u aragtay maadaama ay cabaar baabuurka la saareed, waxay is yiraahdeen haddii aad tustiin Charles sawirkiisa laga yaabo inay aqoonsato. sawirka Charles Reddick ay waxay soo dhexgeliyeen dhowr sawir. waxay ku yiraahdeen ninkii ma ku jiraa sawirkiisa sawiradan? waxay ku tiri kuma jiro. waxay si toos u weydiiyeen intaa kadib Charles Reddick, waxay ku yiraahdeen ninkan miyuu ahaa ninka? waxay ku tiri maya, ninkan waa uu ka yaraa, wuxuu ahaa nin da'yar oo ku jira da'da 20meeyada. ninkan waa nin weyn oo ku jira da'da 40meeyada. sidoo kale wuxuu ahaa nin dhuuban, nin caata ah ayuu ahaa. intaa markay ogaadeen waxay ogaadeen Reddick in uusan ahayn dilaaga, waana la bari yeelay isaga oo ay iska dhaafeen inay dabagal dambe ku sameeyaan. kiiskana wuxuu iska noqday kiis qabow. laakiin markii ay baaritaanada wadeen waxay ogaadeen in dhacdo u eg dhacdadan ay dhacday dhowr maalin ka hor intii aan la dilin Dale. 7 bishii July, nin darbi jiifa oo lagu magacaabo Jimmy White ayaa waxaa u yimid nin wata qoray jabsho ah, wuxuuna ku dhuftay dhowr xabadood. Jimmy waa uu dhaawacmay, waxaa soo gaaray dhaawacyo khatara. nasiib wanaagiisa ma uusan dhiman. markii ay wareysteen booliska wuxuu u sheegay in ninka toogtay ee xabadaha ku dhuftay uu ahaa nin madow, sidoo kalena uu ahaa nin dhuuban, laakiin intaa ka badan ma uusan ka arag sababta waa la boobsiiyey isaga oo jiifa. intaa markay ogaadeen dambi baarayaasha waxay is yiraahdeen ma laga yaabaa saddexdan dhacda qofka ka dambeeyey inuu ahaa isku mid, sababtoo ah haweenaydii ugu dambeeyay waxay u sheegtay inuu ahaa nin madow. ninkii darbi jiifka ahaana wuxuu sheegay isagana inuu ahaa nin madow oo dhuuban, halka waa isaga ekaayeen. sidoo kale qoraga la isticmaalay ee lagu dilay haweenayda iyo qoragii lagu dhaawacay ninka darbi jiifkana waa ay isku ekaayeen. waxay isweydiiyeen dambi baarayaashu ma laga yaabaa in ninka ka dambeeyey saddexdan dhacdo uu yahay isku hal nin, laakiin jawaab ma aysan u hayn su'aashooda. ku dhowaad bil kadib 8 bishii August ayaa mar kale waxaa loo sheegay dambi baarayaasha in ay ka dhacday magaalada dhacdo kale oo qoraga la isticmaalay uu yahay qoray jabsho ah. 8 bishii August, meel lagu magacaabo Texas Roadhouse oo ahaa baar ku yaala jidka dhinaciisa ayaa nin wuxuu ku toogtay nin kale oo uu ku dhaawacay. booliskii markay imaadeen goobtana waxay u yimaadeen nin dhaawacan. ninkii waxaa la geeyey cisbitaalka, waxaana loo sheegay in ninka la dhaawacay uu yahay nin lagu magacaabo Jedidiah Harr. ninka dhaawacay ee toogtayna waxaa lagu magacaabaa Quincy Allen. wuxuu ka shaqayn jiray maqaayadda Texas Roadhouse. wuxuu ahaa Quincy nin dhib badan oo inta badan shaqaalaha isla shaqeeyaan, marna dhiba marna la kaftama. mid ka mida dumarkii ka shaqayn jiray oo lagu magacaabo Tiffany Todd
ayuu la kaftamay, waa ay xanaaqday, kaftankiisa ayay ka xanaaqday, kadibna waa ay iskhilaafeen oo war ay isdhaafsadeen. wuxuu ku yidhi Quincy, waxaan kugu dhufan doonaa caloosha, uurka ayaana kaa soo ridi doonaa. waxay lahayd uur. intaa markii uu ku yidhi waa ay xanaaqday, waxayna wacday saaxiibkeed oo lagu magacaabo Brian Marquis, waxayna u sheegtay wixii uu ku yidhi Quincy. isaga, Brian iyo 2 nin ay saaxiib ahaayeen oo mid lagu magacaabo Chididia Har iyo mid kale oo lagu magacaabo Jason Boyd ayaa isu soo raacay. saddexdooda waxay yimideen makhaayadda. markii ay yimideen makhaayadda, waxaa isdagaalay Quincy iyo Brian. waxyar kadib waa la kala celiyey. Brian iyo saaxiibadiisna waa laga soo eriyey makhaayadda. ninkii milkiilihii ayaa ka soo saaray makhaayadda. markii la kala celiyey, intii dadka ay buuqsanaayeen oo Brian iyo laga saarayay makhaayadda, Quincy waa uu baxay, wuxuuna tegay baabuurkiisa. baabuurka ayuu wuxuu kala soo baxay qoray jabsho ah, wuxuuna soo aaday dhanka baabuurka Brian iyo Chididiaga iyo Brian ayaa waxay isla saarayeen baabuur, halka saaxiibkood Jasonna uu baabuur gooniya watay. Brian iyo saaxiibkiis iyaga oo aan ogeyn in ninka uu qora u doontay ayay waxay ka soo baxeen makhaayadda, waxayna koreen baabuurkooda. baabuurkii markii ay shideen oo ay dhaqaaqi rabaan, ayuu wuxuu soo istaagay baabuurka qaybta dambe, wuxuuna xabad uga soo riday qori jabshe qaybta dambe. wuxuu kasoo dhex bixiyey maraayadda dambe, waxayna madaxa qaybtiisa dambe uga dhacday Chididiah oo baabuurka waday. markii Chididiah ay xabaddu ku dhacday, ayuu Brian wuxuu ka degay baabuurka, kadibna waa uu cararay. wuxuu galay dukaanka kaalin shidaal oo u dhoweed makhaayadda, wuxuuna ka codsaday haweenaydii joogtay dukaanka inay wacdo booliska oo ay u sheegto in saaxiibkiis la toogtay. sidoo kale wuxuu u sheegay in nin qoro wato uu soo daba joogo oo uu rabo inuu dilo. haweenaydii waxay ku qariday Brian firinjeerka. markii ay firinjeerka ku qariday oo ay ka soo laabatay, ayaa dukaanka waxaa soo galay Quincy oo wata qoray jabsho ah. wuxuu ku yidhi, aawa ninkii dukaanka soo galay? waxay ku tiri, nin ma arag. kadib Quincy waa uu iska baxay, waana uu iska tegey. intaa markii ay ogaadeen dambi baarayaasha iyo booliska, waxay baareen baabuurka ninka lagu dhaawacay, waxayna baabuurka gadaashiisa ka heleen fooqii xabadda la isticmaalay. fooqa xabadda la isticmaalay markii ay baareen, wuxuu la mid noqday fooqyadii xabadihii lagu dilay Dale Hall. waxay noqdeen isku mid. waxayna ogaadeen in isku qoray labada xabadood laga riday, ayna u badan tahay Quincy Allen inuu yahay qofka dilay Dale Hall. Quincy Jovan Allen wuxuu dhashay bishii November sanadkii 1979. wuxuu ku dhashay magaalada Columbia ee gobolka South Carolina. Quincy yaraantiisii aabihiis ma uusan arag. aabihiis wuxuu ka tegay mar hore, waxaa soo koriday hooyadiis, wuxuuna ku soo koray nolol adag iyo faqri, taas oo keentay isagoo da'yar inuu bilaabo isticmaalka iyo ka ganacsiga daroogada. dhowr jeer ayuuna xabsiyada galay. 1 sano ka hor markii uu dilka geystay, ayuuna wuxuu ka soo baxay xabsi. markii uu dhintay kadib, boolisku waxay fariin u direen booliska oo dhan, oo waxaa la geliyey database-ka in la soo qabto Quincy Allen maadaama loo haysto inuu dil geystay. maalinkii xigay ayay waxay ogaadeen in lagu istaajiyey gobolka Virginia. waxaa lagu qabtay gobolka Virginia, laakiin askarigii qabtay wuxuu ku istaajiyey maadaama baabuurka uu xoog u waday oo xawaaro ka badan xawaarihii la ogolaa uu ku waday, laakiin ma uusan baarin qofka uu yahay ee wuxuu u jiray tikid ganaaxa ayuu u jaray, kadibna waa uu iska sii daayey. intaa markay ogaadeen dambi baarayaashu, waxay ogaadeen inuu isaga tegay gobolka oo dhan, gobolka South Carolina oo dhan, laakiin ma aysan ogeyn meel uu aaday iyo dhanka uu aaday. 11 bishii Agost, booliska deegaan lagu magacaabo Surry oo ku yaala gobolka North Carolina waqooyiga Carolina ayaa waxay waceen dambi baare, waxayna u sheegeen in 2 qofood lagu dilay dukaan ku yaala deegaanka. dukaankuna wuxuu ahaa dukaan ku yaala jid highway oo lagu magacaabo I-77. dukaanka markii uu tagay, wuxuu ugu tagay 2 nin oo meeyda. ninna wuxuu yaala meydkiisa miiska kaashiyerka dhabarkiisa, miiska ayuu ka dambeeyey, midna wuxuu yaala miiska hortiisa. wuxuu u qaatay dambi baaraha in midka ka dambeeya miiska uu yahay shaqaalihii ka shaqaynaya dukaanka, midka ka horeeya miiska ee miiska hortiisa yaalana inuu yahay macaamiil wax ka iibsanaya dukaanka. dambi baarihii wuxuu la xiriiray sidoo kale ninkii lahaa dukaanka, wuxuuna u sheegay nin kale dukaanka in ninka miiska dhabarkiisa yaala uu yahay ninkii ka shaqaynaya dukaanka oo lagu magacaabo Richard Hawkes oo 43 sano jir ahaa. laakiin ninka kale ee miiska hortiisa yaala isaga ma aysan aqoonsan, mana aysan ka helin markii ay baareen aqoonsi. waxay arkeen sidoo kale in 2 ninba lagu dilay jabshe, sababta afooqyadii xabadaha ayay waxay ka heleen goobta. waxay tageen intaa kadib baakinka waxay ka
heleen baabuurka markii ay baareen taargadiisa waxay heleen nin kale magaciisa iyo sawirkiisa wuxuuna ahaa Quincy Allen. waxay ogaadeen sidoo kale in Quincy Allen laga doonayo gobolka South Carolina oo loo haysto inuu qof ku soo dilo gobolka. sidoo kale dambi baarihii wuxuu helay kaamirad CCTV oo ku dhagan dukaanka wuxuuna ogaaday in kaamirada ay shaqaynaydo. wuxuu soo qaatay muuqaaladii waa uu fiirsaday. muuqaalada waxaa ka muuqda nin madow oo soo galay dukaanka alaab ayuu iibsaday kadibna waa uu baxay. wax yar kadib wuxuu soo laabtay isaga oo wata qori jabsho ah wuxuuna toogtay ninkii kaashiyerka Richard. kadibna wuxuu tagay mashiinka lacagta lagu xareeyo. mashiinkii isagoo isku dayaya inuu furo ayaa 30 ilbiriqsi kadib waxaa soo galay nin kale. ninkii siduu u soo socday wuxuu u soo dhawaaday miiska kaashiyerka. ninkana ma uusa arag in ninka uu qoro wato sababtoo ah qoriga waa uu laalaadinayay waxaana ku aadanaa miiska kaashiyerka. markii uu ku soo dhawaaday ayuu Quincy qoriga kor u soo qaaday wuxuuna ku qabtay ninkii wuxuuna ku dhuftay xabad caloosha ayuu kaga dhuftay. kadib waa uu la soo wareegay miiska. ninka ayuu baartay wuxuu ka qaatay furihii baabuurkiisa iyo boorso. wuxuu madax kaga dhuftay mar kale xabad kadibna waa uu baxay wuxuuna qaatay baabuurkii ninka. intaa markii uu ogaaday dambi baaraha wuxuu macluumaadkii la soo wadaagay dambi baarayaasha gobolka South Carolina ee iyagu markii hore baarayay kiisaskii dilalka ee uu ka geystay magaalada Columbia. maalinkii xigay maalinkii 12 bishii August shaqaalihii ay isla shaqeyn jireen Quincy ay iskala shaqeyn jireen Texas Roadhouse ayaa waxay u sheegeen dambi baarayaasha in Quincy uu soo wacay oo uu u sheegay in uu dad kala dilay. wuxuuna u sheegay sidoo kale in uu haysto liis ay ku qoran yihiin dad magacyadood dadka uu nacab yahay ee ku nool magaalada Columbia. wuxuuna u sheegay inuu soo laaban doono oo magaalada uu ku soo laaban doono dhammaan dadka liiska ugu jirana inuu dili doono. dambi baarayaashii waxay nambarkii ka qaateen dadkii waxayna baareen nambarka. waxay ogaadeen in nambarka uu yahay nambarka nin lagu magacaabo Robert Rush oo 29 sano jir ahaa wuxuuna ka diiwaan gashanaa nambarka gobolka Ohio. macluumaadkaas dambi baarayaasha waxay la wadaageen dambi baarayaashii deegaanka Surry ee gobolka North Carolina. dambi baarayaashii Surry markii intaa ogaadeen waxay ogaadeen in ninka meydkiisa ay ka heleen miiska hortiisa ee markii hore ay aqoonsan waayeen in uu yahay Robert Rush. kadibna waxay u tageen qoyskiisa. waxay tageen gobolka Ohio waxay u sheegeen in la dilay wiilkoodii oo meydkiisa ay heleen. waxay u sheegtay dambi baarayaasha hooyadiis in uu ahaa macallin oo ka ahaa gobolka Ohio. xilliga la dilayna wuxuu u socday gobolka South Carolina wuxuu u socday saaxiibadiis inuu la kulmo ay jaamacadda isla dhiga jireen. laakiin markii uu marayay North Carolina ayuu wuxuu ku leexday dukaan isaga oo aan ogeyn in dukaanka uu ku jiro nin hubaysan. sidaa ayaana lagu dilay intii uusan gaarin meeshii uu u socday oo waxaa dilay Quincy Allen. dambi baarayaasha markii ogaadeen in Quincy uu dadka soo wacayo saaxiibadiis uu soo wacayo oo uu u sheegayo waxa uu geystay mid ka mida gabdhihii saaxiibka la ahaa ee la shaqay jiray ayay waxay siiyeen cajal waxayna ku yiraahdeen marka uu ku soo waco codkiisa duub. haweenaydii codkiisa waa ay duubtay wuxuuna uga sheekeynayay Quincy sida uu dilka u geystay. wuxuu u sheegay inuu dukaan yimid oo uu ugu yimid nin cad oo cayilan. ninkii wuxuu ku yiri waxaan ka iibsaday Coke ama Coca-Cola kadibna waan baxay baabuurka ayaan ku laabtay. marka hore aan imidna qora ma wadan qoraga waxaan uga soo tagay baabuurkii markii aan ku laabtay ayaan waxaa soo qaatay qorigii waxaan ku soo laabtay dukaanka. waxaan u imid ninkii isaga oo sii jeeda oo sigaar shidanaya. dhabarka ayaan xabad uga dhuftay kadibna waxaan la wareegay miiska si lacag aan u qaato. laakiin wax yar kadib waxaa soo galay nin kale nin socda. ninkii markii uu soo dhawaaday ayaa waxaan ku yiri istaag kadibna xabad ayaan ku dhuftay caloosha ayaan uga dhuftay. waa la soo wareegay miiska waxaan ka qaatay alaabtii uu watay madaxa ayaana xabad uga dhuftay mar kale. laakiin waxa la yaab kale ayaa waxay ahayd haweenaydii wuxuu weydiiyey su'aal la yaab leh. wuxuu ku yiri haddii aa aragto qof la dilay madaxiis maskaxdiisa aa aragto ma tagay lahayd. waxay ku tiri ma ogi. wuxuu ku yiri intaa markay ogaadeen dambi baarayaasha waxay ogaadeen Quincy in dilalka uusan joojin doonin oo uu yahay khatar maadaama ay ogaadeen in Robert Rush teleefankiisa uu wato
waxay bilaabeen in taleefanka ay dabagal ku sameeyaan oo ay ka ogaadaan locationkiisa ama meesha uu joogo taleefanka. waxayna ogaadeen maalinkii xigay inuu u soo laabtay gobolka South Carolina sidii uu u sheegay qaar ka mid ah saaxiibadiis inuu soo laaban doono oo dadka uu neceb yahay uu lay doono. waxay ka cabsadeen dambibaarayaasha inuu yimaado oo dad cusub uu dilo sida Brian Marquis oo kale, laakiin markii uu yimid magaalo lagu magacaabo Greenfield oo ku taala South Carolina, halkii uu soo aadi lahaa magaalada Columbia, wuxuu aaday magaalada Atlanta ee gobolka Georgia. markii uu tagay magaalada Atlanta, taleefankii waa iska damiyay ama waa uu dab dhacay. taleefankii waa uu ka takhalusay, laakiin weli waxay dabagal ku hayeen meelaha uu tagayo iyaga oo isticmaalaya kaarkii Robert Rush. wuxuu isticmaalayay kaarkii bangiga ee Robert Rush, waxayna ka ogaanayeen meelaha uu tago kaarka. 14 Agost ay waxay ogaadeen dambibaarayaasha in kaarka uu ku isticmaalay meel lagu magacaabo Barrett oo ka tirsan gobolka Texas. isla markiiba dambibaarayaasha waxay wargeliyeen booliska deegaanka, waxayna u sheegeen ninka iyo tilmaamihiisa Quincy Allen. sidoo kale waxay siiyeen taargada baabuurka. booliska Barrett waxay bilaabeen in ay raadiyaan oo ay jidadka baaraan. sidoo kale waxay tageen meeshii uu ku isticmaalay kaarka oo ahayd dukaan uu leeyahay kaalin shidaal. dukaanka markii ay tageen oo baakinka ay baareen, mid ka mid ah booliskii ayaa wuxuu arkay baabuurkii oo yaala baakin. baabuurka markii uu taargada baarayna wuxuu ogaaday inuu yahay baabuurkii la soo xaday ee Robert Rush. intaa kadib askariga wuxuu fiiriyay baabuurka, wuxuuna arkay in Quincy uu jiifo, baabuurka uu dhex jiifo. kadibna wuxuu sugay inta ay uga imaanayaan boolis dheeriya. markii ay soo urureen oo xoogaa boolis ay imaadeen oo ay baabuurka hareereeyeen, ayay waxay kala hadleen makrofanka, waxayna ku yiraahdeen Quincy isdhiib. laakiin Quincy markii uu soo kacay oo codadka baabuurtooda iyo nalalkooda uu ku kacay, baabuurkii waa uu waday. isla markiiba wuxuu isku dayay inuu fakado, laakiin uma aysan suurto gelin sababta oo lugaha baabuurka ayaa dilaacay. kadibna waa uu istaagay baabuurkii. waxyar kadib wuxuu isku dayay inuu baabuur kale ku aadiyo oo baabuurka kale uu qaato, laakiin uma aysan suurto gelin sababta booliska ayaa ka daba yimid isla markiiba, waana ay soo qabteen Quincy Allen. markii la soo xiray Quincy Allen, waxaa la geeyay deegaanka Surry gobolka North Carolina. markii la geeyay Surry, dambibaarayaashu waa ay wareysteen. markii ay wareysteenna isla markiiba waa uu qirtay dilalkii uu geystay oo dhan. wuxuu ka soo bilaabay ninkii darbi chiefka ahaa Jimmy White. wuxuu u sheegay in Jimmy White uu isku dayay inuu dilo Dale Hall, inuu isagu dilay ninkii uu ku dilay magaalada Columbia gobolka South Carolina, iyo labadii nin ee uu ku dilay Surry gobolka North Carolina. intaa kadib waxaa la soo taagay maxkamad. maxkamadda gobolka North Carolina waxay ku eedeeyday labadii nin ee uu ku dilay gobolkaas, waxaana ku caddaatay inuu dilay, waxaana lagu xukumay xabsi daa'in. waxaa loo wareejiyey intaa kadib gobolka South Carolina magaalada Columbia, waxayna ku eedeeyday maxkamadda ku taala magaalada Columbia labadii qofood ee iyagana uu ku dilay magaalada Columbia, Dale Hall iyo Jedidiah Harr, waxaana ku caddaatay in labadoodaba uu dilay, waxayna ku xukuntay maxkamadda xukun dila. laakiin sanadkii la soo dhaafay 2024 ayaa mar kale kiiskiisa dib loo furay oo mar kale dib loo maxkamadeeyey. maxkamadduna waxay laashay xukunkii hore ee ahaa dilka, waxaana lagu xukumay xabsi daa'in. ilaa iyo maantana wuxuu ku jira xabsiga. muuqaalkeennii maanta intaas ayuu ku eg yahay. tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa ammaano Allah.